سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته walaalahayga Soomaali weyn meel walba aad joogtaan waxaan idin leeyahay jumcatukum mubaarak alxamdulilah waa asbuuca kala haddana saad ogtihiin maasha allah ilaahay kulley ibni aadanka waa inuu ku mahadiyaa maalin kasta kulla yawmin huwa fi sha'n maalin kasto shacnigeeday wadata alxamdulilah walaalayaal horta kow maanta mawduuca waxay tahay waalidkaaga ma kaa furi karaa naagtaa qabtid xaqiiqatan ma kaa furi karo waxa waaye marmarka qaarkooda waalidiin waxaa jirto waxay leeyihiin ha ku furo ninkan ama gabadhan fur ama macnaha waxaa leeyahay wiilkaa leeyahay naagtan fur ama gabadhaa leeyahay ninka iska fur marka waxyaalahaas ma fiicna waayo waxaan idin siinayaa yacni sheeko yar ama faa'iida yar liannu waxaan saas u dhahayaa for example ka soo qabo haddii oo gabadhaada wiil fiican qabo oo macnaha oo iska ladan oo xaaladiisa iska fiican alxamdulilah oo gabadhaada maasha allah oo ku soo aaday nin aad u wanaagsan alxamdulilah qof walba waa u baahanahni inay saas wada noqdaan waayo alxamdulilah waa loo duceeyaa ciyaalka xaqiiqatan ciyaalka waa loo duceeyaa waayo waxaa laga yaabaa for example mathalan wiilkaaga gabadhuu qabo ciddeeda inay iska sabraan oo adiga wiilkaaga waxba uuna haysan oo gabadhana mashaakil wax kasto oonba macnaha ataa maalinkooda inay u gembisaa laga yaabaa alxamdulilah waayo marmar waxaad arkaysaa haddana waalidka wuxuu leeyahay naga fur gabadheena naga fur waayo macnaha waa ku dhibtooti saan waay marka haddaa fiirisid qof oo macnaha oo xaaladiisa fiican iyo qof xaaladiisa fiicneena jirto kasoo qabo hadda saan kuu sheegay wiilkaaga waxaa laga yaabaa inuu oo shaqaynaynin ama xaaladiisa iska yani oo iska caadi ah ama gabadhaada nin fiicana qabo marka alxamdulilah marka waa la fiiriyaa labada dhinac xaaladda ibni aadanka isku mid ma ahan marka in la sabro caruurtan ayaan la dhihin fur xaaladiisa xun ilaahay faraj buu furayaa waayo markaad guursatid waxaa laga yaabaa in aad wax ku noqotid maxaa la dhahay nasiib ama waxaa laga yaabaa inuu xoogaa cariir yar aa gashid that's why lagu leeyahay markii oo ninkii u tagay nabiga u dhahay gabadhan yacni ii sheeg dhib intaan aroosay wax kasto dhibaato markaasuu leeyahay too kale ku dar haddana sidii too kale ku dar marka waxyaalaha saas oo kalea laga yaabaa marka insha allahu tacaala yacni wiilkaaga fiiri gabadha dadow fiiri ama gabadhaada fiiri wiilka dadow fiiri marka alxamdulilahi waa loo duceeyaa insha allahu tacaala yacni ma fiicno in la dhaho fur ama calashan wuu liitaa ama wax la'aana haysato marka alxamdulilah saas ma fiicno insha allah waalidow insha allah fiiri fikir ma kastay kolley qof oo ka furi karo cunugiisa ma jiro waayo adiga fur baad leedahay asagiina wuu jecel yahay maxaa tala ah marka ma fiicno marka insha allah kheyr baan idin rajaynayaa ra'yigeyga iyo waxyaalahan arkay ayaan ka hadlay insha allah ka faa'iidaysta waayo adduunkan dad nooc walbaa la arkaa marka insha allahu tacaala saad ogtihiin waxaan idin xasuusinayaa maanta waa maalin jimca ilaahay suurad dhanuu noo soo dejiyey suuratuljumca oo aayadaha ugu dambeeya uu leeyahay acuudu billahi min ashaytaani arajiim يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم
تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم إن شاء الله تعالى هلو دادالو صدقة ودافع البلاء هلو دادالو دعوينك إن شاء الله وحيال بدن وكاريبيا إن شاء الله تعالى صدقة واجب وحوكو ياهي قف كستا أو لذن inuu bixiyo sadaqada aday ku fiican tahay insha Allah zaa'ida looga hadlay adkaarta salaadaha lagu dadaalo hala adkee insha Allah ta'ala walaalahayga adduunkan waa u jeedaan in la is baraarujiyo wax ka fiican male in la is xasuusiyo wax ka fiican male insha Allah walaalahayga khayran idin dhaafay barakallahu fiikum wa inoo jumco dambe wabillahi tawfiiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh